Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta halkan waxaan ku diyaarinaynaa ama aan doonaynaa inaan bilowno casharo ku saabsan luqadda Ingiriishka. Weliba waxaan awoodda u saaraynaa vocabulary-ga ama erayada. Saad ogsoontihiin, luqaddu waxay ka kooban tahay waxyaalo badan oo la isku geeyey. Waxaana ugu muhiimsan oo door weyn ka ciyaara luqadda inaad baratid waxaa weeye vocabulary-ga ama erayada. Maantay qayb yar oo kooban oo erayo iyo iskugu jira erayo ah baan halkan kusoo duubanaa. Erayada ugu horeeya haddii aan haatan ka hadalno waxaa weeye adequate, micnaheedu noqonaysa af Soomaaliga aan ku filnayn, waxaan macnaha shay ku filayn. Admission, gelitaanka ama isdiiwaangelinta jaamacadda. Admit, dhigitaanka. Admit marka lagu yahay dhigitaan waxaa weeye qofka isbitaalka kale marka la dhigo ama la jiifiyo yaa waxaa la yiraahdaa admit. Adolescent waxaa weeye iyadu dhalinyaro, waa qof yaraantiina ka tegay, qof weyn aan noqon, oo dhalinyarada meel dhexaadka baa adolescent la yiraahdaa dhalinyarada. Adult waxaa weeye qof weyn oo adolescent-daasi ku xigtaa oo waa qofka weyn saan u naqaano. Advance waxa weeye faa'iido ama horumar inaad sameysid. Faa'iido. Advice baa iyadana ku xigta. Advice waxa weeye waano ama talo, saa hadba adigu taqaanid. Tusaale ahaan oo kale qof baa ku waaniyay ama talo kuu soo jeediyay, taasaa waxaa la yiraahdaa waano. Advocate baa jira. Advocate waa u doodid, waa dadka u dooda oo macnaha sida looyarada iyo kale iyo dooditaan weeye. Affair waxa weeye arrin. Affairs baa iyadana jiro arrimaha noqonaysa si guud ah. Aggressive waxa weeye gardarro ama qof dagaal jooga. Tusaale ahaan oo kale waxa leeyahay ama meel colaad ka jiro. Tusaale ahaan oo kale waxa lagu leeyahay aggressive area. Aggressive area waa goobta, waa area ay dagaal ka jiro ama la isku dagaalo. Agreement waxa weeye heshiis ama heshiin. Tusaale ahaan oo kale labadeena wax isku afgaranayna ama ku heshiinayna inaan waxa sameyno ama hawl fulino. Agreement baa la yiraahdaa. Aid baa iyadana jirta. Aid waxa weeye gargaar ama caawin. Sidaad ogtahay, first aid baan maqalnaa caawinta koowaad ama first aid gargaar degdeg ah baan maqalnaa. First aid gargaar degdeg ah. Sidaa darteed aid waxay ka timid gargaar ama caawin. Aim baa jira. Aim waxa weeye ujeedo. Aim waa ujeedo. Alternative baa jirta. Alternative waxa weeye bedeli kara. Tusaale ahaan oo kale inagu waxaan rabnay inaan hawl qabsano. Tusaale ahaan oo kale waxaan rabnay inaan mobile gadano. Mobilkii waa weyn noocu ahaa, ama nooc kale noo bedeli kara oo aan uga maarmi karno asagii noo bedelka booskiisa ma heli karaa. Qof baa tagay oo boos shaqo ka tagay, sida laaliga qofkii booskan ka tagay qof bedeli kara ma heli karaa. Alternative baa la yiraahdaa marka. Although baa jira iyaduna. Although waxa weeye inkastoo. Tusaale ahaan oo kale waxaan ku leeyahay anigu maanta waxaan rabaa inaan tago inkastoo hawl ii taalo. Marka waxaa la yiraahdaa although baa la yiraahdaa. Always baa jira. Had iyo goor. Waa wax joogta ah soo noqnoqda. Marka although baa la yiraahdaa. Maanta erayadan waxaan kusoo koobanaa halkan. Waxaan ka codsanaynaa walaalayaal inaad share tiraahdaan, inaad like saartaan, inaad subscribe saardaan. Waxaan ka codsanaynaa subscribe inaad noo saardaan kanaalkeena. Waxaan si joogto ah usoo gudbin doonaa luqadda Ingiriishka, casharrada, xaqiiqooyinka, barnaamijyada iyo xogaha oo dhan baan soo gudbin doonaa haddii Ilaahay idmo oo Ilaahay noo ogolaado. Marka waxaan ka codsanaynaa inaad like-ta iyo subscribe-ka noogu roonaataan.